kulanti wacan akhyaarta hawada nagala xiriirtay kuna soo dhawaada barnaamijka soo dhaweynta iyo hambaliyada sanadka cusub ee 2013 waxa caado bini'aadamka adduunka wada saaran oo ah in markuu sanad cusub dhasho loo dabaaldego iyadoo dabaaldegaas qaarun waliba u samaysato si gaar ah waxaase laysaga mid yahay sida dadka yar iyo weynba ugu farxaan dhalashada sanadka cusub kalandarkee doonaanba ha ku dhaqmaane markuu sanad cusub dhasho waxaa badanaa la rajeeyaa inuu noqdo mid ka fiicnaada kii ka horreeyey sidoo kale qof waliba wuxuu si gaar ah u niyeystaa sanadka cusub inuu helo waxyaabihii uu tabayay sida inuu lacag badan helo dalxiis meelo qurux badan u aado ama qofuu jecel yahay helo hadduu haystana la waqti qaato haddaba sanadkii hore waan soo aragnay wuxuu ahaa oo wuxuu sidayna waan helnay ee sanadkan 2013 maxaan ka sugnaa waxaan barnaamijka maanta ku soo dhaweyn doonaa sanadka cusub ee 2013 waxaana wadajir u maqli doonaa hambaliyada qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Columbus ee gobolka Ohio iyo waxay ka rajeynayaan inuu sanadkan noqdo anigoo ah Basra Bilan ayaa barnaamijka idin soo diyaariyay ee mar kale dhageystayaal sanad wanaagsan magaca بسم الله الرحمن الرحيم magaca waxa la liibaan maxamed xuseen waa maasanta liibaan wax yar ma noo sheegi kartaa waxa dhacdadii kugu weynayd ama waxa sanadka 2012 ku soo xasuusanaysid ugu weyn wallahi waxyaalo badan baa jiro aan ku soo xasuusanayo waxa kamid ah doorashada oo ka dhacday Muqdisho oo madaxweynaha Xasan Sheekh uu doortay waxa kamid ah iyo maartay farmaajo markii la doortay iyo Cabdiwali iyo Sheekh Shariif waxyaalaha ku xasuus kamid tahay iyo madaxweynaha Obama oo mar labaad oo la doortay isagana taasna ay tahay waxyaalaha ku xasuusanayo noloshaada caadiga ah wax dhacdo oo noloshaada xiiso badan ma dhacayeen oo aad leedahay waxaas ama ciyaal ku dhashay ha ahaadaan ama baawur cusub ama guri cusub ay iibsatay ha ahaado ama wax farxad leh oo adiga noloshaada ka dhacay ama wax kale oo aan farxad ahayn oo noloshaada ka dhacay oo soo xasuusanaysid wallahi ilaa hadda waa wax qalbigay ku jiro ma jiro oo ku soo xasuus karo laakiin waxa jiro waxyaalo oo adiga badan oo dhacay waa jiraan laakiin waxaan ku soo xasuusan karaa sidii Allah u naxariistay yar saaxiibkay oo aad u jeclaa qaali ah inuu accident ku dhintay asoo markaas ila hadlaayo telefoonka taasoo kale iska jirto waa wax aad aan ka naxayd laakiin waa minaha waxyaalo soo xasuuso sometimes ay kamid tahay iyadana ma dhacdo naxdin la way taas ilaaha u naxariisto waxa markay ii sheegtaa sanadka hadda dhalanaya ee 2013 waxyaabaha aad rajeynaysid sanadkaas inay dhacaan ama noloshaada ha ahaato ama caalamka ama wadankii waxay noqotaba waxyaabaha aad rajeynaysid islaada waxa fiicnaan lahaa inuu dhaco wallahi waxaan rajeynayaa insha Allah sanadka soo socdo 2013 in waxyaalo fiican ay dhacaan sidii Soomaaliya inay noqoto wadan oo hal direction wada socdo
سمعنا دماتو gobolooyinka oo dhahayo hebelkaland hebelka xasan dhamaato oo qof walba oo maartay madaxweynaha wadaashan Soomaaliya inkastoo hadda madaxweynaha leedahay laakiin still waxa ka jiro meel qaarkooda daliil baas ka jirto marka waxaan jeclaan lahay waxa la dhamaato insha Allah waxaan kaloo jeclaan lahay in maartay dadka oo muslimiinta meel walba ay joogaan ilaahay maartay uu ku dhooro oo ilaahay maartay uu protection siiyo ilaahay ma caafimaadku inta xanuunsan caafimaad siiyo jeclaan lahay waxaan kaloo jeclaan lahaa oo kale in oo insha Allah maartay dadka Soomaalida meel walba ay joogaan in gacmaha is qabsadaan adwaarka dibadda ka dhacday Zambia Kenya email badan taasna waxa u sababa anaga kaldaasanaan aan radaasanahay marka waxaan jeclaan lahaa in gacanta is qabsadaan sa anaga oo noqon hal insha Allah maasanid yaa marka gabagabadii u hambalyeynaysaa hambalyada sanadka cusub ee hadda aan galnay 2013 waxaan u hambalyeynayaa saaxiibkii qaaliga oo best friendkayga ah Saadaq Aadan iyo Yasmiin Shamsuddin ayagoo oo ku aqal galay magaalada Columbus Ohio taariikhdii ahayd December 23rd 2012 soo eegana ayaan u hambalyeynayaa hambalyo labadiinaba marka ubad khayr qabo iyo nolol wanaagsan oo Ilaahay siiyo iyo intii umada idinka dalmida ma sha Allah aadi aad ma hasan tahay walaal magaca aniga Warshaale Maxamed Aadan waxa ii sheegtaa sanadka 2012 marka aad dib u fiirisid waxyaabihii aad isleedahay waa ku soo xasuusanaysaa kamid ah la waxyaabo badan ma ku soo xasuusanaya ummadda Soomaaliyeed horumar inay gaarto horta ku soo xasuusanaya oo wadankii nabad ka dhacday oo dawlad ka dhalatay barwaaqo sooran ka dhacay xaqii loo soo dhaxmaray marka aad ma u faraxsanahay sanadka cusub nagu soo horle sanadka 2012 waa ilaa waa askii dawladeena ma ogtahay laakiin inaan hore u saan balqaado oo saan baqaadno yaan aad u jeclahay okay waxyaabo adiga shakhsi ahaan leeda waxyaabo noocaas ah igu dhacay oo farxad leh ama waxyaabo naxdin leh oo sanadka 2012 aad dib markaa u soo fiirisid aad leeda waxyaabahaas sanadkaas dhacay wallahi wax naxdin lama kulmo wax farxad leh mooyane sababtoo wadankeedii hooyo oo hadda dib u ambaqaaday oo dawladda dhisantay waxyaalo fara badan laga soo waramay aad ugu faraxsanahay wixii dawladda Soomaaliya oo dhan farxadeedu waay laakiin wax kale oo adiga isbedel noloshaada ku yimid oo aad sanadka 2012 ku soo xasuusanaysid wallahi aad baan u faraxsanahay horumar fara badan baan ka sameeyay wadanka guriyal baan sameeyay business fara badan baan ka sameeyay farxaddu waa iska sii socotaa ma soo hartay farxadda ما شاء الله محرجيني سنة كان هذا دلنا 2013 waxyaabo aad leedahay waa rajeynaa inay dhacaan isbedel oo adiga noloshaada haday tahay iyo nolosha guud ahaanba waxyaabo aad rajeynaysid haday jiraan wallahi nolosheeda aad baa u rajeynaa inay farxad la sii kulanto farxadeeda horba u sii ambaqaadaysa insha Allah aadna hawlo badan baan ku jiraa hawlooyinka horena u sii ambaqaadan jeclahay hoos loo soo dhici maayo horinba loo sii ambaqaadiyaa dawladii way sii socotaa annagii waa sii qulqulana wadankii waa loo qulqulayaa ogaa naasan waxaad ii sheegtaa markii yaa u hambalyeynaysaa sanadkan 2013 dad aad jeceshahay in hambalyo u dirtid iyo bogaadin aad sanadka ugu hambalyeynaysid wax noocaas ma jiraan ummadda Soomaaliyeed dhan baan u hambalyeynay meel kasta joogaan dal iyo dibad meel kasta joogaan wadankeena waa ambaqaaday waxaan u leeyahay bashbash iyo barwaaqo iyo farxad wanaagsan dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan leeyahay in wadankii hooyo loo soo ambaqaado korbul ku noolaan may wadankaadii hadda tagtid بهالشيء بس كل سنة زاردي بالله سنة ساعي بالله سنة دي قدرتي بس بيرنسا بيري بس بيرنسا بابورتي بس كحسنة ده عندك عشور ما يسمركه مركا أمد الصومال وحنا كوجوا بينا ملك السجوان ودك بادري كوجوك بس واحد فرال جوا عن كينياس هذا كينيا كده عاد حق بعد السكينيو الدار ده كده سمودي مركا ودك كده هوي يعني كوسع هذا هدوي لا ينجرزي إن شاء الله waa hagaag qaaruun walba sibay ugu ciidaan dhalashada sanadka cusub ma ogtahay dhageystow in dalal kamid ah qaaradda Latin America looga dabaaldego sanadka cusub iyadoo matante ama nigis jaalla ah dadku xiran yihiin taasoo macnaheedu yahay in barwaaqo iyo lacag la helayo sanadka cusub
sidoo kale dalka Denmark oo iyaguna caado u leh in habeenka sanadka cusub soo galayo kuraasta dushooda lagu boodo oo haddana guryaha dariska albaabadooda saxuun lagu soo jijibiyo taasoo loola jeedo barwaaqo iyo nasiib wanaagsan inuu qofka heli doono sanadka cusub. waa la yaab. haatana ku soo dhawaada fanaankeennii Xasan Aadan Samatar iyo heestiisii Dabaylaha.
dadka wadaroray qaybinta wada rainkay kaxshi anta loo sodaa ma halkaan raba maraskan ducada rabbi uga barya rainkay kaxshi anta loo sodaa ma halkaan raba maraskan ducada rabbi uga barya jacayl rasmiyaaba makalgacal rumooba marugtaa degaysid ruqiyayla qaydba jacayl rasmiyaaba makalgacal rumooba marugtaa degaysid ruqiyayla qaydba caruur qaysiyo nagaad haka diintu taal isiqiyo caruur qaysiyo nagaad haka diintu taal roonaqayna raxmad iyo wanaag haydi raaraxshee hayskaylenogo roonaqayna raxmad iyo wanaag haydi raaraxshee hayskaylenogo aniga waxaa la yiraahdaa Caasho Yuusuf sanad cusub 2013 wallahi waxaan ku xasuusanahay sanadkii 2012 waa guurkayga oo sanadkaas dhacay waxaan hambalyo u dirayaa reerkayga gaar ahaan ninkayga iyo ehelkayga waxaan kaloo salaamayaa ummadda Soomaaliyeed kuwa Columbus iyo caalamka oo dhan walaal magaca marka hore Cabdishakuur Maxamed mahadsanid ma noo sheegi kartaa dhacdadii kugu xiisaha badnayd ama aad ku soo xasuusanaysay sanadka 2012 wallaahi way badan yihiin dhacdooyinka aan ku soo xasuusan karno caalamka iyo gudaha wadanka Ameerika intaba waxa anaga gooni ahaan igu xiiso badnaa waxyaalihii aan sanadkii hore ku xasuusan karo waxa waaye inagoo sameynay company weyn ee Soomaalida inta dad badan ay ka shaqeeyaan tracking business ah ilaa 20 qof oo Soomaali ah iyo dad kale ay ka shaqeeyaan waxyaalihii noogu xiiso badnaa saas waa taas ka mid aha iyo waxyaalo badan oo dhacay waxa kale oo maaragtay noogu xiiso badnaa dhacdooyinka soo maray United States waxa ka mid aha madaxweynaha America United States Obama oo dib ugu soo laabtay maaragtay madaxtinimada dalka Mareykanka next 4 years waxyaalahaas ayaa ka mid ah waxyaalihii ugu xiisaha badnaa ee ka dhacay maaragtay noogu xiisaha badnaa soo maray waxaan rajeynaysaa sanadkan 2013 waxaan rajeynaynaa waxyaalo badan sanadka 2013 haduu Ilaahay yiraahdo in maaragtay dhaqaalaha wadankan oo maaragtay hoos u socday in aan maaragtay oo kor u soo kaca rajeynaa businessada inay noo hagaagaan ummadda Soomaaliyeed kulligeedna waxaan u rajeynaa khayr iyo barwaaqo maasanid cid hambalyo u diraysid waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ummadda muslimiinta ah marka hore kadibna waxaan hambalyo u diraa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan waxaan u dirayaa familkeena hooyaday iyo caruurteyda oo ku nool dalka Saudi Arabia iyo halkaanba caruurteyda halkaan joogto xaaskayga kulli waxaan leeyahay maartay hambalyo sanadka cusub aad iyo aad u maasantay walaalkiis waa hagaag waxaan leenahay sanadka cusub ee 2013 kii noo hagaagee noqon loo hanweyn yahay bal markana aan ku soo dhaweyno sanadka heestan kale oo macaan oo ay noogu luuqayso fanaanadii Faadimo Cabdullaahi Mandeeq
dhagaystayaal waxaad maqlayseen waa qaar ka mid a dadweynaha degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo soo dhaweynaya sanadka cusub ee 2013 hambalyana hawada u marinayay eheladooda iyo ummadda Soomaaliyeed halkaad barnaamijka ka dhagaysanaysaanna waa raadiyaha Danjir codka bulshada Ohio oo idinkaga soo gala mawjadaha dhaadheer ee 102.1 iyo 98.3 WCRS toddobaad kasta maalmaha Sabtida iyo Axadda saacadu markay tahay 4:00 galabnimo sidoo kale waxaad ka dhagaysataan barteena internetka ee danjirnews.com barnaamijkan aan ku soo dhaweynaynay sanadka cusub ee 2013 waxaan uga baxaynaa heesan yar ee macaan waa aniga oo Basra oo idin leh sida iyo ismaqal dambo xiiso leh قربنا حاريا ديباتيو على الصبدنا على الصبدنا عديا قربنا حاريا ديباتيو على الصبدنا على الصبدنا جعلكي قيسي علمي بدلي ليلة نقبي قدقي أنا إيقو قدولي قرنتك جعلكي قيسي علمي بدلي ليلة نقبي قدقي أنا إيقو قدولي تاني واقسيا قصنك يا ويردا ميا أني قلعي قري تاني واقسيا قصنك يا ويردا ميا أني قلعي قري